الله naxariista wariye maxamed ibraahim gaw oo kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed oo shalay galabtii qarax looga xiray gaarigiisa lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa tacsiyo tiiraanyalo u soo diray suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ku dhaqan xarooyinka qocootiga Dhadhaab ayagoo ay sheegeen wariyaashan in ay aad uga xun yihiin dilka loo geystay isla markaana Allah ay ugu bariyeen in uu jannadii Firdaws uu ka waraabiyo maxamed ibraahim waxayna hawada u soo mariyeen ehladii iyo qaraabadii uu ka tagay marxuunkan in uu Allah samir jamiil ka siiyo أنا كميدا هذا اللذو ذا سيدتان محمد إبراهيم جابه ونحرستي ربي الله سيو وحنا أمر وضدي أي مرين محمد إبراهيم راجي مختار محمد هرابي علي إيمان شرماركي مهد حسن حريد حسن كافي يرونتي وريال أدو فربضان أو سيجر دراء لو ودلي مقالة مقدشة يقيبا كميدا قبل الدلكة سيدي ورياشي فرها بدنايا وكلا وكميدا نستعد داير فرح سوى البهاء هاتو وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون مركو وهريسا وحن التعسيين يا جودهن شعبك يا أمد الصوماليات دولة الصوماليات وحن التعسيين يا دلدا صحفيين الصوماليات النسج وأحمد رنتي أقنت أرمها دنك ورياشة وحنا أد sidoo kale aan ugu tacsiyeynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tagay maxamed ibraahim gaabo waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah naga wada siiyo dhamaanteen markad kuwa dilayo suxufiga waxaan dhihi lahaa waa daashay gacanta ku xanuunto saxaafada hadii aad dishay walaalkeena maxamed ogow mar walba in 10 ay bedeli doonto maxaa yeelay ogow markii dil uu imaado in la dilo dhiirigelin ayaa dadka kala siinaysa in wax dadka kale lagu dilo qofkan suxufiga lagu dilayo in wax xaq u yahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kullu nafsin daa'iqatul maut geerida mar walba qof ay haleelaysaa waxaan halkan tacsiid tiiraanyo leh uga direynaa dhammaan bahda saxaafada xiriyaha qocootiga Dhadhaab ehelkii qaraabadii uu ka baxay wariye maxamed ibraahim gaabo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un محمد إبراهيم جاو أو كلسن تيفي شغيو إحنا نن حلية وهي كرهدين بلشة عنده حتى إجرنا وهي لبيكتان نمنك أقوي هانك أما نمنك بلشة وإفيه ورياش وإفتينك بلشة عنده هذا مرك أتبع وحناه عدي جيستي محمد إبراهيم جاونا وحان إلهي أغبرينا جنة فردوس الله وإنا إليه راجعون هربانو تحسينا يا walaalkay محمد إبراهيم جاو oo lagu dilay shalayto magaalada Muqdisho run ahaantii geeridiisa aad bay noo taabatay waanaan ku xunahay waana u taxsiinayna anagoo ah dhammaan bahda saxaafada ee ku dhaqan xiriyaha qocootiga Dhadhaab si kastaba ha ahaatee wariyaasha Soomaaliyeed ayaa loo geystaa dilal joogto ah oo aan cidna maxkamad loo soo taagin maadaama aan ka jirin dalka dawlad amaankeeda la isku haleyn karo Idriis Maxamed Xasan Idriis Afiya KGS Channel xerooyinka qocootiga Dhadhaab